بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي وين السلامي ميل كستو عالمك كتشوفتين وحنا السلام يا سلام سلامك وحنا كنا دمانتينا في عنتهن ومركلي ولاشين لول ومانتيني وضو cunto kaleeto oo ka duwantii hore ay iga barateen soo dhawaada waxyaabaha aan ka hirgeliyana runtii wax iisiyo oo aad u fudud waaye aadna u macaan qudaarta maadaama ramadaan soo socdo iyo hadduu soo socon ba anaga soomaalideena qudaarta ma badsano waa loo baahan yahay inaan qudaar badan cuno ama caruurteena siino insha allah cuntadaanayta maanta idiin wado xataa sambuuska ooga maarmaysiin oo booska sambuuska waa gashan kartiin meeshaanayto sidaa arkaysiin waxaa igu jiro hal xaboo yaanye ah hal xaboo bataatiga macaane ah iyo kaarooto sidoo kaleeto waxaa meeshaan ku haystaa turkidaas oo maxaa la dhihi jiray oo saas u taasho waa tarki shiidan waxaa kaloo meeshaan ku haystaa kidney beanistaas sida arkaysiin waa digirta oo kelida camal ah oo beaniska oo diyaarsana gasaacadaha waaye sidoo kaleeto waxaa meeshaan ku haystaa waa yaanyada caadiga oo yaanyo marooleyda waaye wax kaleeto oo cusbo iyo waxba ma lahan yaanyo caadiya waaye asxaabteyda oo taasano selti aareg runtii cuntadan waa ka heli doontiin aad iyo aad aniga idinka soo tijaabiyey way idin anfici doontaa meeshaan sidoo kale waxaan ku haystaa cheeska asagoo diyaarsan oo xoqana waa soo gadan kartaa haddaa rabtid waa xoqan kartaa adiga waa kana asagana halkaasaan kusoo diyaarsaday markaan soo jaro alaabtaan ama soo diyaariya asxaabteyda waxaan ka hirgelinaya iyo sidaan u suubinayana waa arkaysin insha allah qudaarta ha lagu dadaalo runtii kaarotadan mada isticmaalaya laba xabaa isticmaalaya kaarood hoolkaasaana ku hoolanayaa adiga haddaad jeceshahay inaad jarjaratid waa jarjari kartaa laakiin optionkan inaad hooshid aa kuu fiican sababtoo ah ilmaha wax ma iska bixbixinayaan qudaartana afkaaga ma ka dareemaysid waxa waaye ayada dhan qudaar simanay noqonee bataatigayaan soo xoqay aadan iskaga soo dhaqaysaana marka koowaad sidoo kaleta kaarootada laba xabaa isticmaalaya labada kale cabitaan aan ku shiidan doonaa insha allah kaarootadiina waan soo xoqay asxaabteeda iyadana waa taasaa halkaasaan kusoo diyaarsaday waxaan soo diyaarinayaa hadda waxawaa yaanyadii iyo maxaa la dhihi jiray iyo jiiskaan soo diyaarinayaa sidoo kale tarkida weelka waan ka shubaya weel kalean kusoo shubaya maanta hadday kugu horeyso videogeyga oo janaalkayga ku cusub tahay fadlan subscribe-ka noo saar gambaleelka taaba si aa u aragtid wax kasto haddaad sii joogteen oo asxaabteeda hore kamid tahayna aad martimatiida waxaan ku yidhi like-ta le naga hilmaamin saasaa usoo jari kartaa jiiska markaas haddana dhuudhuuba usii jari kartaa si ayda u dhuudhuubee haddii kaleetana waxaa ku xooqaysaa kaarod hoolka sidoo kale meeshaan waxaan ku haystaa saliidda olive oil waaye tarkidiina waxaa kasoo bixiyay bacdii waatana sidaana aan kasoo dhigay dabka waxaa ii saaran baankii aan ku karin lahaa ama digsigii saliid aan ku shubaya wax yaro saliid olive laba qaada camal ma ku badinayay sababta waxaa isticmaalaya jiiskana saa ogtihiin subag waaye waxaan ku shubay hadda saa ujeediinba tarkidii aan ku shubay yaanyadii gasaca aan ku gediyay halka xabo yaanyada waa ujeediin yaanya wax caadiya waaye wax kaleeto malaha waa just yaanyo leh haddii aada tan gasaca jeclayna midda oo naturalka waa ku bedelan kartaa oo maxaa la dhihi jiray intaa rabtidaa ka isticmaali kartaa laakiin aniga waa isticmaalayay sababtoo ah taa kale iga dhamaatay halka xabana ma igu filnayn oo salar ahaan aan dusha uga darsan doonaa midda kaleeto marka saana turkiga ani waxaa rabaa waa burburin kartaa saaida u jajabin kartaa laakiin ani waxaa rabaa just inuu hilib aan ka dhex dareemo ma fahamteen hilib ahaana uu ii noqdo soo saaid ma u jarjaraayay asxaabta aad ma u burburinayay saas kuuskuus aan ka rabaa hilib aan ka dhex dareemo yaanyadii iyo hadda iyo hilibkii le waaye saana usoo shiilee ilaa ay ka qalasho dheecaanka kasoo tufto oo iska shiisho waxaan ku dhahay xabag ma ku daraysid sidaan le u subsanee runtii cuntadan sambuuska bedelkiisa waa idiin geli kartaa rootiga iyo intaa gashatiin iyo jabaatiga iyo cunto saliid lagu dhex shiilin aa gashan kartiin waa iiga soo duceyn doontiin aad iyo aad idiin anfici doontaa sambuusna ma u xiiseysid sababtoo sambuuska intaanu qudaar ma lagu daro waa hilib iyo just iyo basal laakiin cuntadan sida u dhammaystiran tahay waxyaabaha ka buuxa waa arkaysiin fiiri inta wax hal mar maxaa la dhihi jiray calooshaada tegayso oo qudaartii bataatigii leh kaarotadii leh digirtii leh maxaa la dhihi jiray hilibkiina qaybta oo tarkiga ka cuntay sidoo kaleeto yaanyadii meesha kama maqno jiiskii intaasoo qudaara hal mar afkaaga iskugu tegayso mise calooshaada sambuuskana waa hilib iyo basal saas marka differentiga waaye qudaar aad iyo aad u badan aa familiga siinaysaa
ilmahana way kula korinaysaa marka insha allah sambuuska la iska yareeyo cuntooyinkana lagu bedesho cuntooyinka sida qudaaraha iyo digiraha iyo waxyaabahaas anaga way nagu yaryihiin inaan barano waaye marka sidaan markaan iskugu soo shiilo runtii wax badan ma karinaayay yaanyadiina waatana hadda diyaar ay tahay iyadana sidoo kale kaarotadii weli kuma darin bataatigana wax yaraan ka reebtay oo rabaa inaan hadhow dusha uga carfiyo basashaan optional waaye ma ku daraysid haddii dadkaaga ay jecleen mise caruurtaada laakiin qofkii rabaa saaranaayo aniga ma ku daraayo laakiin waa diyaarsaday si qofkii raba uusa u waayin hadda waatana mana karsamin oo dabkana aad igu gaaban yahay asxaabteeda u jeediin qudaartii waxaa waaye inay saaid u bislaato lama rabo sidaas oo kaleeto yaanyada inay iga bislaato ma rabo ayadana ansalaata ahaanaan ka rabaa yaanyada iyo kaaroodka hal maraan ku daraayaa iyo jiiska hal mar leesaan u gedinayaa haddana waxaan ku daraayaa caraftii aan ugu talagalay runtii cusbo badan ma rabo because jiiska dhanaan waaye waa ogtihiin waxaan ku darsanayaa wax yar oo haruud ah sidoo kaleeto filfil wax yar oregano ayadana qaada haafkeedan ka isticmaalayaa tuunta iyo kabsar caleenta oo cusbada leh aan ku darsanayaa iyo wax yar oo basbaas gaduudka waaweyn oo lasoo jijibiyey waaye sidoo kaleeto waxaan ku darsanayaa oo hadda aan ku daraayo waa maxaa la dhihi jiray ayadana waa qudaar oo lagu daro saan oo kaleeto runtii intaas le ka isticmaalaya wax cusbo iyo dhanaan kaleeto isticmaalaya ma jirto laakiin adiga carabkaaga adaa taqaantid inaad dhanaan badan bartay iyo in kaleeto soo wixii adiga ku anfacaya ku darso jeceshahay aniga intaas ka badan kuma daraayo cusbada hadda waa kana sidaan inoogu soo baxday maasha allah tabaarak allah kaarotadii ii soo hartay iyo bataatigii aan soo reebtay aan ku shubaaya asxaabta intaasaan ku daraayaa haddana jiiskii aan dusha uga geynayaa jiiska inuu dhalaalo bes aan sugayaa ma ku daraayo waxba dabka ma kusii hayn doono jiiska intuu ka dhalaalaya lee dabka ku haynaya ma fahamteen dabkana waa low aad u gaaban yahay qudaartaas maasha allah tabaarak allah laga faa'iidaysto hala cuno qudaarta aad u fiican tahay intaas qudaaro waxa waaye hal fadhi haddaa ku cuntid ku qadaysid ama ku cashaysid kaaliska arag cashadoo kaleeto ciyaalka ana casriye ahaan markay iskuulka ka yimaadaan sidaan ugu suubiyaa sababtoo ah ciyaalka waxaa bariis iyo baasta ayaga ma ka qayb qaadan karaan iyo raashimaha culculus anaga laftirkeena nooma fiicno markasta inaan ku celceshano bariis iyo baasto waa inaan cuntooyinka tayada leh cuntaa waa kana hadna kabsartii aan kusoo darayaa dabkiina waa damiyey already kabsarta markaa kusoo daro hal mar leesaa u gedinaya asxaabteeda waxaa kaleeto dusha uga quruxsan doonaa oo wax yar aan ku dari doonaa mozzarella cheese horta wax yar saan iskugu gedinayaa dabkana waa ka damiyey oo dab iima saarno cheeska inuu dhalaalo aan sugayaa oo si fiican u dhalaalo qudaarta ku gedinayaa laakiin dabka waa damiyey saa arkaysiinba dab ma saarno hadda saana kusoo baxday quruxda maasha allah tabaarak allah lagama sheekeyn karo dhadhankana aniga idinka hubo aad iyo aad u macaan tahay lagama hadli karaa idin cuntadan qofka soo hordhigtid oo soo qanacsan oo ka tagaya dadka qaarkiis waxayba ku dhaayaan intee kasoo gaday cheese mozzarella cheese wax yar dusha uga soo qurxiyay waa kaasa waxa rabaa cheese saayidayna iyo noqoto ilmaha cheese siisto cunugaaga duu cheese diid yahay oo cheese-ka jeclayn sidaan ku siisan kartaa asxaabta videogeeni halkaas kusoo bislaaday raashinkeena oo ujeedin saas kusoo baxay hadeertaana waxaan diyaarinaynaa wixii aan ku cuni lahayn aniga maanta jabaatina ma ku cunayno laakiin waxaan ku cunaynaa galeydaas waa galey oo saas loo soo suubiyey waxay ka suubsan tahayna waa kaasaa qofkii rabaa soo gato screenshot ka qaada yellow corn waaye galeyda oo yellowga ah laga suubiyey wax buro oo ku jirta malahan faad dhanna malahan 1% xataa kuma jiro laakiin adii mid faad leh oo seelt leh iyo buuxa haddaa jeceshaa soo gadan kartaa laakiin kaneeto waxba malahan waa just galeyle laga suubiyey saasa u soo diyaarsanaa asxaabta dhexda le uga shubeysaa asagaa diyaarsan dukaamaha any dukaan arabtid lagu gadaa maxaa la jiray dukaamaha lagu gadaa sida Walmart iyo kaleeto kan superka waa ka helaysaa I don't know inaad dukaamaha kale ka helaysiin laakiin labadaas iyo Sam's-kana waa ka helaysaa saddexdaas dukaan aniga waa hubaa marka insha Allah waa kasaa asxaabteena sida quruxda badan ay ku soo baxday ilaahay intaa heesana ha siiyo annagana Allah noo siyaadiyo oo ha noo daaweeyo cuntooyinka fudud oo quruxda badan oo caafimaadkana asxaabta laga faa'iideysto walaalaha gabdhaha jikada ku jiro iyo wiilasha bintaba
ilmahaaga hadaa qudaarta bartid runtii waxa waaye wow aysaa jirkooda ka dareemaysaa. waan ku shubayaa saa arkaysiin. saasuu cheesy u yahay. basasha saa idin sheegana optional waa qofkii rabaa saaranayo ee qofkaa rabina meesha uga tagayaa. soo wax dhiba male, cuntada dambaa lagu isticmaalaa hadday soo harta xataa. rabadaan wanaagsan aa idin leeyahay maadaama rabadaan soo dhow yahay. cuntooyinka noocyadan ama maxaa la jiro qudaaraha badan aa idin soo gelin doonaa asxaabta. janaalka sii share gareeya, sii faafiya, liketa iyo wax walbana halayaa laga hagran. daawra ila joogto qaybta commentiga lagaa arko insha allah. aad iyo aad u mahadsantihiin sida wanaagsan ay la socotiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi